marka anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hankii weynaa oo Soomaali ay u qabtay oo la lahaa oday Soomaaliyeed oo umuliso oo xogogaal ah dalkan meelaha dhibaatada ay ka soo gaartay xogogaal waa meeshii la lahaa dadkii Soomaaliyeed waa kala diray cabsi weyn oo waxaan qabnaa wax laga dhaxlaba in la waayo sidii hadda wax u socdaan si argagixisada carriga u soo qabsanaysa ciidankii xoogga sida u burburay oo ma garanaysa ay sheeg waadhow Cabdiraxmaan Cabshukuur kelimad cajiib ah oo dadka Soomaaliyeed haday wax dhageysanayaan ayuu sheegay ciidan qaxaya laga dhaxlo yiri xashiiq ciidamo qaxaya oo tiknikadoodii iyo dabaabaadkoodii wato qaxaya iyo gabar yar oo iskuul inta aaday gurigeedoo jajaban imaanaysa iyo qabuuro la fagaya ee la leeyahay ma taqaan guriga laga dhisanaya ama qolaalisi ama qolal laga iibiyo aan laga dhaxlo yiri taariikhda xasan sheekh waxyaabaha ku suntan ay qayb ka tahay marka Cabdiliilow wadankayga runtii waa ka xumahay maanta siduu yahay inuu ahaa aadaan ugu xumahay dadka Soomaaliyeed mashaakilka ugu weyn ee haysta waa argagixiso qaabka ay doontaba ha ahaa argagixisana wada jir iyo midnimo lagu wajihi karaa ana ree hebel iyo anaga iri iyo ana saa'iri argagixiso lagu wajihi karo shabaab dhowr 20 sano wadankan jooga oo sidii cashuur ay qaataan ma garanaysa ay taageero caalami ay helaan marka aad tiraadid cidna uma baahni oo garab uma baahni oo Jubbaland uma baahni garab oo South West uma baahni bal hortii shabeelle hebelan ka xoreynaya hadda dhibaatada hadda dhacday baa dhacays marka anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha dabcan waxaan isleeyahay xisaabaadu isku dhufsaday la taliyaal qaldana la taliyay signal qaldana u baxay kursigana aad u jecel yahay oo ma garanaysa ay sheegay waxa uu hadda ka shaqeynay 3 sano ani uma arko inay ahayd dan guud oo Soomaaliyeed dantiisa gaarka ah ayuu ka shaqeynayay dan gaarana cid meel ku tagaysa la heli maayo hortii jire ayaa waay